waxaa soo baxay taleefonkii la wada sugayay ee Redmi Note 13. Taleefonkan ayaa waxaa ka horeeyay Redmi Note 12 oo ahaa taleefon aad u tayo sareeya, qiimihiisuna uu jaban yahay, suuqana si weyn u galay. Marka taleefonkan cusub ee Redmi Note 13 tayadiisu sidee ayay ahaan doontaa, qiimihiisu sidee ayuu ahaan doonaa, suuqana ma u gali doonaa sida kii ka horeeyay ee Redmi Note 12. taleefonkan ayaa qoloftiisa sare ama qaybtiisa sare waxaa loo soo naqshad gareeyay qaab falaad ah oo fidsan, wuxuuna ku soo baxay dhowr midab oo kala duwan. Redmi Note 13 ayaa qaybtiisa kaamirada waxay u samaysan tahay qaab afar gees ah, waxaana ka soo muuqda labadii indhood ee kaamirada iyo flashtii. taleefonkan ayaa ka mid ah taleefanada ugu xaleefsan uguna khafiifsan, waana 7.6mm oo kaliya. aad ayuuna u fudud yahay oo waa 173 gram oo kaliya. taleefonkan ayaa shaashadiisu waxay tahay nooca loo yaqaano AMOLED-ka, ballaca shaashadiisuna waa 6.6 inch, waana 120 Hz. taleefonkan ayaa wuxuu ku shaqeynayaa nidaamka Android 13. dhammaan taleefanada Android-ka ku shaqeeya ayaa hadda waxay soo wada marayaan Android 13. kaliya waxaa jira hal taleefon oo isagu u gudbay Android 14, waana taleefonka ay 4tii bishan soo bandhigtay shirkadda Google, waana taleefonkeeda Pixel 8 iyo Pixel 8 Pro. laakiin hadda ayaa la rajeynayaa in taleefanada kalena ay u gudbaan nidaamka Android 14. taleefonkan ayaa raamkiisa wuxuu ku yimid laba nooc, sidoo kale maskaxdiisuna waxay ku timid laba nooc. raamkiisu wuxuu ku yimid RAM 8 iyo RAM 12, halka maskaxdiisuna ay ku timid 128GB iyo 256GB. kaamirada dambe ee taleefonkan ayaa waxay tahay 100 megapixel, laakiin dhaliisha ugu weyn ee Redmi sanadkan ay la kulmayso waxaa weeye in ay kaamirada dambe ay ka soo saartay lenskii ultra wide-ka ah oo taleefanadii hore ay lahaan jireen. taleefonkan ayaa baterigiisu aad u wanaagsan yahay oo waa 5000 mAh. chargerkan wuxuu ku qaadanayaa awood dhan 33 watt. waayahay waxaad sugaysaa qiimaha taleefonkan inaad ogaatid. taleefonkan aad u jeedid tayada baterigiisa iyo tayada kaamiradiisa waa $156 oo kaliya. marka uu yahay Redmi Note 13 Pro-na 200 lacag ka yar weeye. shirkadda Xiaomi oo ay hoos timaado shirkaddan Redmi ee taleefonkan soo saartay ayaa qorshayaasheeda waxaa ka mid ah in ay suuqyada caalamka soo geliso taleefano aad u tayo sareeya, qiimahooduna uu jaban yahay. su'aal yar oo kooban, annagoo og Soomaaliya inta badan in laga isticmaalo taleefano Samsung iyo xoogaa yar oo iPhone ah, laakiin adiga sanadkii hore ma qaadatay Redmi Note 12 mise sanadkan diyaar u tahay in aad tijaabisid Redmi Note 13?